muddo dhowr iyo 20 sano kadib waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso ayaa muddo 2 toddobaad u qabtay in looga baxo xarunta wasaaradda arrimaha gudaha oo ku taala degmada Boondheere. gudoomiyaha ayaa amarkaasi bixiyay kadib markii uu kulan la qaatay qaar ka mid ah shacabkii deganaa xarunta wasaaradda arrimaha gudaha isagoo uga mahadceliyay sida ay u fududeeyeen amarka ku aadan in la baneeyo xaruntani. gudoomiyaha degmada Boondheere Seenab Yuusuf Weliye ayaa ugu horeen ka hadashay amarka uu gudoomiyaha gobolka Banaadir soo saaray in la baneeyo waayo wasaaradii maxaa yeelay hadii aan dhahno meel walba shacabaa degan dawladii meel ay ku shaqeysay u baahan tahay ummadii meel loogu shaqeeyo shacabka laftigiisa meel loogu shaqeeyo u baahan yahay meel loogu shaqeeyo la arki ma hadaan banaynin oo naan maxay tahay isku taxallujin inaan banayno hay'adaha dawladda maxaan ku iraahdaa dawladda ay fursad u heshay inay dib u dhisto. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Ashari waxa uu sheegay in wasaaradda ay dhawaan dib u dhis ku sameyn doonto xaruntani in maanta xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyadoo ay diyaar u tahay in dib wasaaraddu ay u dhisto looguna adeego shacabka Soomaaliyeed waxayna ka tahay xarumaha wasaaraduhu ay leeyihiin ama hay'adaha dawladda ay leeyihiin oo shacabku ay deganaayeen oo bilicda magaalada iyo adeegga dadweynaha la soo celinayo ay qayb ka tahay. waxaa maanta aad iyo aad sharaf inoogu ah in gobolka Banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha la shaqeeyo dhan ay diyaar u yihiin in wasaaradii dib loo dhiso. duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriso waxa uu sheegay in goobaha danta guud lagu dhisi doono ololaha isxilqaan oo uu hogaaminayo maamulka gobolka Banaadir. waxaan uga mahadcelinaa odayaashii aan sida gaarka ula kulanay oo noo cadeeyay inay muwaadiniin yihiin Soomaaliyeed diyaarna waa in mar alaale markii xaruntani dawladda u baahan tahay inay baneyn doonaan ayagana kaalin ka qaadan doonaan. barnaamijka isxilqaan wuxuu qoraa in dhammaan goobaha danta guud shacabku dhistaan si isxilqaannimo ah. wasaaradda arrimaha gudahana waxay qayb ka tahay barnaamijka isxilqaan oo shacabka iyo bulshada isku duuban maamul gobolka Banaadir iyo wasaaraddana ay diyaar u yihiin in dib loo dhiso. sidaas daraadeed waxaan aad uga mahadcelinaynaa shacabka degan xaruntan oo fahmay in ay wasaaraddu leedahay horena u deganaayeen haddana diyaar u yihiin inay si muwaadinimo ah Soomaalinimo ah isxilqaannimo ku jirto u baneeyaan.